السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله إنه وحرا رمضان مبارك وحاجرين أعرابي وحو إرزاقاتي سكرا سنجري حيبتا مسبدا ساو تقانتو وحو أهد عاديسة إنو مركز توم الله وكان ريركيسي مال ما كمينة أسوا كانوا فربان سو أرسد أو قرق لإمادي حاسكيس أيودي بي حاسكيس وحيب الله إني جرتو iyadoo jarayso kalluunkii waxay ka heshay dayman ayay ka heshay runtii aad bay u faraxday waxay u keentay zawjkeeda ayay u keentay waxay dhahday zawji daymankan ayaa ka dhaxelay malaydii aan keentay runtii asagana aad buu u farxay wuxuu aaday ninka daymanka iibiyo markuu u tagay wuxuu dhahay aniga runtii daymanka aa wadato aniga ma haya lacag aan ku gooyo daymankan qaali waaye waxaan ku tilmaamay nin lacag fara badan haysto si daymankaas uu kaa gato ninkii ayuu u tagay markuu u tagay ninkina wuxuu ku dhahay runtii daymanka aa wada waa dayman qaali aniga ma awoodi inaan gato balse waxaan ku tilmaamaya waaliga qaryada ku nool ayaan ku tilmaamaya asiga ayaa ka iibsan karaa wuxuu u tagay waaligii ayuu u tagay wuuna u sheegay waxaan haystaa uu dhahay daymankan inay iga gadato ayaan rabaa runtii waaliga wuu fiiriyey markuu fiiriyey ayuu ku dhahay wallaahi aniga daymankan lacag u qalmata makuu hay balse hal fursad ayaan ku siinaya waxaan leeyahay qol oo qasnad qolkaas ayaa galaysaa waxaana ku jiraysaa 6 saacadood ayaa ku jiraysaa 6 saacadood wixii ku anfaca hanti waxaa rabta ka soo baxso qaado markaa qaadatana daymanka waa iga tagaysaa hantidii aad qaadanayso ayaa u qaadanaysaa daymanka inaan kaa gatay runtii ninkii wuu yaabay 6 saac way badan tahay 2 saac ayaa ugu filan balse ninkii waliga wuxuu dhahay 6 saacadood ayaan ku siinayaa ninkii qolkii khasnada ayaa la geliyey markii la geliyey runtii markuu galay aad buu ula tacajubay wuxuu arkay sariir uu weligiis arkin oo meesha taalo wuxuu arkay cunto fara badan oo weligiis uu arkin wuxuu kaloo arkay dahab fara badan ayuu arkay markuu qolkan galay ayuu naftiisa u sheekeeyey wuxuu dhahay 6 saac way badan tahay cuntada cun saaxo haddana soo kac waxna maalka arooso ninka cuntada ayuu cunay si fiican buu u dargay wuu saxday markuu saxday ayaa hurdada la tagtay wuxuu maqlay qayli oo leeyahay albaabka fur markuu albaabka furay ayaa lahayd soo bax waqtigaadu ka dhamaaday markuu furay ayuu qayliyey wuxuu dhahay waqti muu dhamaanin wax aan aroosaday oo hanti ma jirto walaalahayga qisada xikmad fara badan ay leedahay runtii daymanka arkeene waa naftaadi waa dayman naftaada way qurux badan tahay waxaa laga rabaa inaad markastoo naftaadi aad qurxiso ma ogtahay dahabkii uu la kulmay markuu galay qolkii khasnada waa adduunyada runtii way weyn tahay waxaa la kulmaysaa waxyaalo fara badan ma ogtahay faraashkii uu la kulmay faraashka waa qaflada waaye qaflada qofka bini'aadanka asoo war iska haynin ayuu geeriyoon karaa ma ogtahay dhacaamka iyo sharaabka uu la kulmay waa shahwada qofka bini'aadanka shahwada meel xun ayay ka ridaa ilaahay subxaanahu watacaala wuu noo digay in shahwada ay tahay cadowga ugu weyn ee qofka bini'aadanka u leeyahay